weerar ku bilowday duqeymo oo caawa ka socda buuraleyda gobolka bari iyo faahfaahin dheeraad oo ka soo baxayo khasaaraha ka dhashay muuqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa xogta oo dhameystiran laakiin intaan u guda galin muuqaalka like saara si share garay oo la wadaag saaxiibada bogana follow soo mahadsanid aynu ku bilownay faahfaahin dheeraad ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar duqeymo ku bilowday oo gordhaweed oo caawa ay qaadeen ciidamada dawlad goboleedka Puntland oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya ka taageera dhanka duqeymaha waxa ayna wararku ay sheegayaan in haatan duqeymo aan kala joogsi lahayn lagu arqinayo buuraleyda gobolka bari iyadoo khasaare baaxad leh laga soo warinayo in duqeymahaasi ay geysteen saraakiisha hogaaminaysa howlgalkani ee dawlad goboleedka Puntland oo xiriiro kala duwan aan la sameynay ayaa waxa ay inoo sheegeen in caawa buuraleyda gobolka bari ay ka socdaan duqeymo aan kala joogsi lahayn iyo weerar toos ah oo ay fulinayaan ciidamada dagaalka ku jira ee dawlad goboleedka Puntland waxaana diyaaradaha Mareykanka qaasatan howlgalka Africom ee dalka Mareykanka ay gacan ka helayaan ciidamada dawlad goboleedka Puntland kuwaasi oo dagaal foolka fool ah kula jira kooxda Daesh oo caawa kadabkeeda uu ku go'ay buuraleyda gobolka bari wararka hordhaca ee soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan isla markaana ay noo xaqiijiyeen saraakiisha in haatan duqeymaha socda lagu dilay 20 dagaalame oo ka tirsan kooxda Daesh oo isugu jira ajaanib iyo Soomaali iyadoo sidoo kale xogaha qaar ay sheegayaan kuwaasi oo aan la xaqiijin karin in uu dhaawacan yahay hogaamiyaha kooxda Daesh ee lagu magacaabo Cabduqaadir Muumin laakiin wararkaasi ma ahan kuwa dhab ah oo sax ah oo la xaqiijiyay laakiin wararka soo baxaya ayaa sheegaya in hogaamiyaha kooxda Daesh uu dhaawacan yahay waxa jira sidoo kale kooxda Daesh xubno sarsare oo kamid ah oo dhaawacyo ay ka soo gaareen dagaalkani buuraleyda gobolka bari caawa ka socda ee duqeymaha ay sidoo kale garab yaacayana daawade wixii xog ah oo ka soo kordho waxaan kugula wadaagi doonaa muuqaalada kuwan xiga